أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن شاء الله موضوعي حلي أو كسب سنة الخشوع في الصلاة أما روح الصلاة، صلاة الروح هذا أيان إن شاء الله سي وذيناه ماشي حلي كتو جنانا كسي وذيناه وحان كهليني حلي إن شاء الله تدكم مركز صلاة التكنيان إن أقيب سمان شنقف قف كست شنتاس متكمد أبو النغضاء تدك قاركود صلاة أي تكنيان موقال كذا سيد الركوع ده إيو السجود ده إيو صلاة أركان ده إيو طهارة ده أويسة ده إيو وقت صلاة ده إيو خشوع ده قلبي منا ما العليان وقف اسكتو كانية وقت يبقى اللي قاري صلاة ده إصنافي أمبا كجرت دادك قاركود قفكاس واددك أوليت وأن كوا إلهي وكت المامي وكوا الذين هم إلهي وكت أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. واددك الصلاة ده هالمانسان صلاة دو تكني وهالمانسانية دادك جروب كلا بعد وحويا قف صلاة دي موقال كذي وهجاجنيا ركوع دي سجود دي وقرحنيا لكن قلبي جسي ما تشوق وحكى لكم مشغول سيء قلبي جسي وحكى سهدو سمينا قلبي جسي ما صح حاضر نكره قف كاس أصلا والدرجة اللي بعد وقف صلاة دي سي حافته صلاة داس waxaa dhici karta inaan aakhiro la weydiin maxaad u tukan weyday laakiin waxa la leeyahay salaada kuma aadan khushuucin khushuucda salaaduna waa waajib shayga waajibka ana hadii aan la imaanin cibaadadii inay asaxaysay in kale ilaahay baa qofka saddexaad waxa weeye qof salaadii uu muuqaalkeedii uu ilaaliyay qalbigiina uu la dagaalamaya shaydaanku uu iimaanaya waswaasinaya uu iska celinaya waxaan shalay soo maray shaytaan la yiraahdo khinzab oo shaqadiisa dhan ay tahay salaada inuu qofka ka waswaasiyo shaqadiisa dhan waa intaas qofka inuu salaada ka waswaasiyo qofkaas marka shaydaanka celinaya marka ka awood badinaya oo quraankii aadaya oo siraac ku jira oo isaga dhama dagaalka ku jira waa in uu dagaalkaas xoojiyo oo isku day shaydaanka inuu ka awood badiyo. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص وحو بري شيطان كاس هدوك وسواسيو تعوذ بالله منه إلهي كما جنقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده والله قارك ذو حديعك تئنو ده سكة استهدان إلهي وقم انقل بقل مر شيطان كاس أمي ما يدايه إنو ده ما يسكع لنك رب بقل مر كل مر حتى هدان إلهي كما انقل لكن وحاد وقاتان قفكم مركو إلهي ما جنقليو waxay ku xiran tahay habka aad u magan galayso a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim hadaad afka ka leedahay dadka qaarkood asagoo iska hal aqoonayo iska hamaasanaya ayuu a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim iska leeyahay shaydaanku taas kaaga ma tagayo waa in markaad a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim aad leedahay aad dareemaysid ilaahiga aad magan galaysid awoodda uu leeyahay iyo in uu yahay asagu midka kaliya oo shaytaankan ka magan galin kara adoo qalbigaagu baxsan yahay oo ilaahay ku xiran yahay waxa leedahay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ilaahayga weyn baan waxaan ka magan galay shaytaanka la dheereeyay baan ka magan galay. culimadu waxay ku miisaaliyaan ninka asaga oo shaytaanka iska dhahayo waan iska naaraya haddana halaaqoonaya intuu dhuulay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim kaasoo shaytaanku igama tagay waxa qofkaasi marka shaytaanka rabtina la dagaalanto hadda tusaale ahaan adoo jidka maraya laamiga adoo maraya haddii nin baabuur uu kula soo qasto inuu ku jiirsiyo inuu ku dilo soo qastay
وصو اسبيل قريني أو كوسو أردية محاسة مين لهي ما دعي كرتا إنا أضوها من سنة ده هنا ترى هذي جيس قمر ما دعي كرتا ما سقفكوا انتو بودو أو قيلية والدرب يسكو قاضية سما سعد بودو يسيدو الدرب يسكو قاضي يسيدو كوانا شدانك ولا دقالمت صوتها شدانك وعدو كوبان باور كان كوسو أردية ساكا خطرسن marka waa in qalbigaaga oo jooga aad qalbiga ka dhahdo a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim qalbiga ilaahi baa ka celinay markaas khinzabkaas hadduu qofku marka dagaalkaas shaydaanka uu kaga guuleysto shaydaanka uu ka guuleysanaya haddii ka shaydaanka ka awood badinaya ولذلك qofka afraad waxa weeye salaada ku jira ninkaas hadda aan ku jira waa nin siraac ku jira dagaal ku jira mar waa laga guuleystaa mar uu guuleysanaya maanta oo dhan wuxuu ku jira shaydaanka iska celi mar shaydaanka soo weeraray qofka afraad waxa weeye qof salaada markuu tukanayo salaadiisa uu ku khushuucaya shaydaankana uu ka awood badiyay qalbigiisuna ilaahay buu ku xidhay ducooyinku akhrinayo uu si toos ah u dhadhansanaya uu ku raaxaysanaya qofka salaada uu ku macaansanaya salaada haddii la dheereeyo uu ku raaxaysanaya haddii la gaabiyo wuxuu jecel yahay in la dheereeyo uu jecel yahay inagu waan aragnay hadda waxaa dhici karta qofka salaada markuu imaamku galo dad baa waxay ku xisaabtamayaan amuu dheereeyaa way baqayaan wuxuu isleeyahay amuu dheereeyaa haddii nin hadduu soo istaago sheekh intuu cimaamada istow taqaarabu salaadii nabiga kale tukanayna oo dad badan baa nixi lahaa sidii ninkan salaada uu dheeranaya sidii odayga yiri oday baa masaajid ku tukaday Soomaaliya kamid ah sheekh masaajidka joogay baa nooga sheekay culimada kamid ah marka wuxuu yiri ninkii salaada tujinayay يعني تو عادي سواق تو عادي صدي وآد وخشوع كم قطوع صفك توسية صلاة النبي وكلام تكلنا سويري أديروا مسافرين أنا هاي حوالنا واحد حرنا صلاة سواق هذه سوي أدير دارت إسكت صلاة النبي قالوا تكلنا هاي أضيق مركو وحنا عقيم ساعات كواب بوحة أضيق أنتو قلال مرة وصفك الدم إسكت جاي مركو شاخ صلاة دي قالي بو صلاة توصل إسكحت مخرب هذا وبوبسي صدق يسيب كتورة saddexdii markuu dhameeyay sheekhiina uu quraanka dhexda marayo iyo odayga wuxuu xusuustay kabihiisi wuxuu dhigay ilaa meesha hore saayid Soomaali ka hal xada hore buu dhigay markaasuu ma bixi karo kabihii meesha ku xayiran yihiin sheekhiina ilaahay wuxuu qoorta u suray aayad qabta uu gafaa odayga soo habaaraya quraankii buu nag dhaqaajin waayay hadda markuu salaada ka baxay sheekhii odayga oday aqal badan baa u istaagay muslimiina in ay khilaaf ku xun yahay sheekhiina ilaahay wuxuu qoorta u suray aayadii أنا كبيها إلها قرطة إسرائيل لازم هذا بقى سكور مركا من كان شيخ حيدنا أيوة لها يا صلاة التوسية صلاة النبي وكلام تكرين أبو أركي ما شو قصة فقالوا له شيخ وصوت قاعد حران واحد حران وثاسو كلام معنا عيال بان قاعدين صوت قاعد عيال بان ضدكم ويكف كراين صلاة التكرين لكن هدي وصلاة قفك كوخ شعاع أو راح يسنى وح والسماء قفك وجي عليها صلاة وكوخ شعاع يعني ولذلك إلهي وحوليه هي واستعينوا بالصبر والصلاة صبر هي صلاة كالميس مركي دباتك وقول عادو صلاة كالميس صلاة كافو وينس صلاة كافو وينس بريادة وحركة القرآن كمركو بريادة كشا كينيو قفك هل آيات أما صدح آيات اسكوحي القرآن كا يعني حركة لحمر أما الشنر با وحاكسو الله أمانس ربنا 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 قفكو وكوع العناية هذا صغف قلبي يسجل ما أنت دن وكوع العلمية إلهي كما أقبلي مرغفك وإنه خشوع قلبي خشوع ذا أي كسر قاضر مركز كذب جركي سو خشوع يا صلاة خشوع سمو قفك تكني وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قفك وحكسي حال دير متكشناد وحد عكرت إنه دتك أصلها وحلم واريو مجرى وقفك فاسا قف صلاة مركو تكني وحكسه هالضيق بعان أندريمين وحكاس هذا عن مدريمي صلاة دي وتكنيا وهجاجينيا وناجينيا هذا وحكاس عن ديكس اللي جويني ما حنوصني صلاة ده سكون مشغول سنية مركو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله له أدوك صار نغريا ودتك صلاة دي أنبياء سلفك صحابة دي أكل دتك صلاة دي مركو إخواني صلاة ده هدينا خشوع لهين 10 كي شلي بإن شاء الله كنت قبلنا إن 10 كمان هدينا خشوع لهين وقف ميد أو نفع كجرين أكل ولذلك إلهي وحوليه هي مركو كشا كان يروح ده صلاة وحوليه هي وعنت الوجوه للحي القيوم قفك السفك تاجن عايدة ساكو صار عايز عايدة محيلة ده هي
qaybta hore aayaddu qiyaamada ka sheekeynaysa salafkii waxay samayn jireen istaaga qiyaamada ilaahay la hor istaagayo iyo waxay isku xiri jireen istaaga uu hadda taagan yahay ilaahay hortiisa maanta qiyaamada dadka dhan oo taagan baad adigu ilaahay wajigiisa istaagi doontaa oo kula hadli doonaa maantana dadkii oo dhan oo taagan baad ilaahay hor taaganta oo kula hadlaya waad la hadlaysaa waad la sheekaysanaysaa markaasuu ilaahay wuxuu yihi wakhashacat ilaswaatu liraxmaan sawdkii dhan ilaahay buu u khushuucay dadkii dhan way aamuseen markaasuu ilaahay aayadda kale wuxuu yihi aayadda kasida midta ka dambaysa wuxuu yihi wacanat ilwujuuhu lilxayi alqayuum wejiyada dhan waxay u khushuuceen ilaahayga xayiga qayuumka ahaa qofka saasuu dareentay wejiga dhan waa khushuucsan yahay dadka dhan waa khushuucsan yihin dadka noocaas u khushuuca markay salaada tukanayaan waa midda aan raadinayno waa dadka ilaahay uu qur-aanka u bishaareeyey ilaahay wuxuu leeyahay qur-aanka markuu ka sheekeynaya wa ilaahukum ilaahu waaxid laa ilaaha ilaa huwa markuu qur-aanka ka sheekeeya aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu aayadda kusoo khatimay wa ilaahukum ilaahu waaxid falahu aslimuu wabashir ilmukhbitiin aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum waa dad markii ilaahay la xuso qalbigoodaa dhalaalaya qofka qalbigiisa isbedelaya qalbigu wax ka dareemaya ilaahay baa la xusay wuxuu maqlay allahu akbar qofkii qalbigiisa isbedelaya ma dhici karta inaad aragto isagoo hamaansoonaya ama hurdaysan ama meel kale jira qalbigiisaa dhalaalaya markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum qofka noocaasa ikhwaani waxaa keliya oo khushuucdaa heli kara qof ku xisaabtamay salaadan waa 5 daqiiqo markaan soo gelaya albaabka waxaa niyadeyda ku jirta salaadaa tukanaysa waa marka ugu badato 10 daqiiqo hadda salaadahana fiiriya 10 daqiiqo maanta waxaan ka soo tegay 5 saacadood ama 6 saacadood oo adduunye ah waxaan adduunye soo qaramsan kara soo dhameyn kara waa soo dhameeyay 5 daqiiqo ilaahay baa iskale qof kale wax kuma leh wax kasta oo kale albaabkan kaga soo tegay safkaan soo galaya waqtigaa yarka 5 daqiiqo ka faa'iideysanaya markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qofka saa u tukanaya waa qofka ilaahay uu soo qaabilayo markuu tukanayo ilaahayna kama jeedsado qofka ilaa uu isagu jeedsado waxaan rabaa wax yar inaan ka sheekayno ikhwaani qalbiga bini aadamka oo saan sheegnay khushuucda ma qalbigay ka timaadaa mise jirka waxay ka timaadaa qalbiga qofka salaada markuu tukanayo meelaha fiirfiirinaya ma qalbigiisaa maqan mise indhihiisaa maqan xaqiiq ahaan qalbigiisaa maqan qalbigiisaa maqan walidaalika ninka markii salaada uu tukanaya geeska fiirinaya ama hortiisa fiirinaya wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam waa shaydaankii oo salaadii ka dafay weeye shaydaankii baa qalbigiisa ka gooyey salaadii baa laga dafay qulub qalbiga bini aadamku marka camal buu qabtaa kitaabada ahlus sunna wal jamaa waxaad ku arkaysaa caqiidada ah a'maalul qulub wax la yiraahdo qalbigu wuxuu leeyahay cod u hadla qalbigu marka i'tiqaadka laga sheekeynayo camal lagu qabtaa camalka qalbigu qabto waa 3 arrimood baa ugu waaweyn wala fiirso waxaad ogaataa qof walba jirka bini aadam kumatiida qalbiga bini aadam ku tahay soo ma ogidin qalbiga asaga jirka ka muhiimsan mashiinka qofka ku xiran waa qalbiga oo qof controlaya baadhiga si kasta uu qurxoon yahay inaga baabuurta hadda waxaan ku gadanaa baadhigiisa mise bashi injiin ka saaran si kasta baabuurku u qoran haduu injiinku everyham yaad gadanaysaa qofka bini aadamka qalbigu ku yahay bini aadam baadhiga qarib qalbigii buu wadaa kaliya marka qalbigu 3 amal buu qabtaa amalka ugu horeeya waxa weeye al khushuuc fi al ibadati inuu ibadada ku khushuuco marka cibaadada sameynaysid inuu qalbigu khushuuco qalbigu inuu khushuuco waxa laga wadaa istishcaaru waxa ku ibn asad baa ku tacriifiyay al khawf waxa weeye bi istishcaar al wuquf bayna yaday al khaliq والمذلة عندما يستشعر الوقوف بين يدي الخالق وأنه يتكلم مع الله تبارك وتعالى إن أوقفك دريمه إنه إلهي هرتاقيه أو إلهي لا شيء كيسانيو marka wuxuu ka baqayaa hor istaagan ilaahay uu hortaagayay ayuu wuxuu qirayaa miskiinimadiisa iyo awoodda ilaahay ba qalbigiisa ku jirta markaasuu wuxuu haddana qirayaa wa anna allaha yujiibuhu fi kalaamihi ilaahayna wuu jawaabaya isaga ilaahay marka sheekaysanaya qofkan walidaalika sufyaan athawri ayaa waxaa li maalmaha ka mid imaamu acmash u yimid
مركزو حيري خشوع ذا صلاة دوامح حلقة وضع إمام الأعمش هو حناقي كسوح يا ثوري يو أنت تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع ما أذيقوا أن خشوع وحي تهجرنين بعد ارتضاد إن الإمام النقط شاد الإمام النقط أن تداد خشوع جرنين مركز قفك وإنه خشوع ذي جرنين وإن ماشو تاجيه هي وجرنين بس كتاجين تاي بكحرن تاي وفي رصد تصالير بعد السنة يعني مرة كقارك وحد عكرته dadka qaarkood markaad hor taagan tahay inaad dareemin inaad bini aadam la joogto iyo inaad xayawaan la joogto soo qofkan wax dana kamali dadka qaarkoodna markaad hor taagan tahay waa tareynaysaa waxa keenay booska taagan tahay baad ogtahay Soma markaad ilaahay hor taagan tahayna soo dareemaysaa hadaad dareentid sidii dadka aadan dan ka lahayn oo kale waa gooni hadaad laakiin qofku intuu baqo uu tareynayo markuu halka taagan yahay قف كاسي وقف في عنوي ولذلك سلف وحيابا كسو وحكمنا علي بن أبي طالب أيا وحالي إذا حضرت صلاة مركي سو حاضرته كان يتزلزل ويتلون وجهه انتو قريرو با وجهه اسبدل يجري صلاة دي على قاري انتو قريرا وجهه اسبدل يا فقيل له حلوي ما لك محاكو ودعي وعلي بن أبي طالب فيقول حلي هاي وجاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحاي من وقته أمانة إلهي أبندق السماء أيديدي أقولك الله أبندق أيديدي أبورها الله أبندق أيديدين وأشفقنا منها وكبقا وحملتها أنيق حماري أمانة ذا ساسعت أمانة ذا سنقذنيا قفكو الدقيقة وقلنا حدين تبدين ياهي والدقيقة كلا جورك أو أما امتحانك كل عيا أما كوباسي مرة قفكو مرة ماشي تشيك بوينت قاع وصلاة وسبدله يا قفكي ولذلك السلف كقارك وحكى سوغن إمام التنوخي وكلا إلا سعيد التنوخي إذا صلى لم تنقطع دموعه من خديه على لحيته وحالي مركي وصلاة دقلو ilmadu magu ijirin ilaa salaada ka baxo ilmeynaya soo ilmeynaya salaada ka baxaya ooyaya waxa kale salafkii ka sugan waxyaabaha yaab kale waxa kamid ah hal qiso baa in ku dul akhrinaya nin la dhihi jiray Hatim al-Asam ayaa waxa la weydiiyay salaadaada bal ka waran nin salaad tukata hadda lagu yiraahdo salaad tukata markaasuu wuxuu yiri إذا حانت الصلاة صلاة مركي سود دواتو أسبغت الوضوء هرت ويسدا وان سفيه عنبا ويسيستا هدان رب إنان ويسيستو ويسدا وان كحيل دير هذا maaha inaan iska gaarsiin kaliya iska gaarsiin dhalinyarada qaar waxaan arkay markuu weeseysanayo timaha ayaa u shanlaysan wuxuu ka baqaa timaha inay ka jabaan meeshaan saa u dhaqayaa uu ka tagayaa foodi xataa biyaha ma gaarsiinayo waa nin aan isbaaq alwudu dan ka lahayn laakiin asbaqtu alwudu bihi aan si fiican isu gaarsiinaya markaan si fiican u weeseysto wa ataytu almawdi'a alladhi uridu salata fihi meesha aan ku tukanayaan imaada meeshaan ku tukanaya markaan imaado fa aqcud waan fariistaa fiihi dhexdiisa waxaan ka bilaabaa waan fariistaa xoogaa muxuu yidhi xataa tajtamica jawaarixii ilaa xubnahaygu ay soo ururaan ilaa qalbigayga aan mas-uul ka noqdo xubnahayga aan kontaroolo fakerkayga aan soo gaabiyo adduunyada aan ka soo dhexbaxo waan fakeraya xoogaa baan fariisanaya uma markaa maxaa dhacday uqaamu lii salaatii salaadaydii baa loo aqimay salaadii baa la ii aqimaa xoogaa baan iska fadhiyaa hadduu taxiyatul masjid tukaday salaadii faradkeed buu sugayaa markii salaada la aqimo maxaan sameeyaa waan istaagaa wa ajcalu alkacbata bayna xaajibaya kacbadii oo dhan baan wejiga dushiisa soo saartaa si ana ujeedo oo kale kacbadii waan ujeedaa markaan tukanayo waxaan ka soo qaadaa kacbada albaabkeeda inaan taagna markaasuu wuxuu leeyahay wasiraata taxta qadamaya jidkii siraadna lugahaygaan dusha hoosteedaan saaraa si aanoo jidka siraad dul taagan markaasuu wuxuu leeyahay waljannata can yamiini jannadana midigtayda jannadii oo waxaan ujeedaa birqayso iftiimayso midigta iga xigta wanaara can shimaali naartiina bidixda iga xigtaa saas wuu sawiranayaa qofku waxbuu sawiranayaa wa malaka almawti
ورائي ملك موت كينا قلاش يدو تاقين هو عيرسنا يا بانقض بو إلى دب الصعداء وصد الصعداء وأظنها آخر صلاتي وحان اسلها صلاة دان بأدون كوكو دان بيس مدان ان جنة كوكال بان اسلها في كان وحو صورنا سو جدك سرا دول تاقن هرتي سمحا تاقن كعبدي مدكتي سوا جندي بيحي سوا نارتي ملك موت با قلال صعدو او رادينيو ربا انو قبطو صلاه واتي يغو دمبيس نكان انتو سن قبانين وانا صلاه كا غارسيو ثم اقوم وان استاغابو يري بين يدي الرجاء والخوف انا صلاه اذا دخدغي رجاء يا خوف دينعنا الهي بان كبقيا دينعنا وان رجينيا مره waxaan isleeyahay ilaahi waa ghafuurur rahiim mara waxaan isleeyahay ilaahi waa shadiidul ciqaab baan isleeyahay intaasna waa salaada dhexdeedii markaasuu wuxuu leeyahay wa asjudu wa arkacu wuxuu yiri wa ukabbiru takbiiran takbiir baan takbiirsaa bitahqiiqin anoo sugaya allahu akbar baan leeyahay wa aqra'u bitartiilin quraankana tartiib baan u akhriyaa khushuuc wa arkacu rukuucan atawaadacu ركوعا كنت تواضع يبان ركوعا مسكين اسكا دغاي واسجد سجودا بتخشع سجود اذا وان اسخشوعيا ولكن ان ماركتين مكلال شمبرا قادايس او كله قولي قادايس سيدو كلان اسو مسكيميا markan sujuuday saas oo kale marka maxaa ka dambaysiya wa atba'uha al-ikhlas ikhlas baan ka dabageeya ilaahi darti waxaan u sameeynaa ilaahi darti qofna dan kamalihi ogaada qalbigayga saa dhahay وروح هذا رفتان ده إذنك أنا ما كان جعلي إلهي ما أنت كان يا مركا كدم هذا ثم لا أدري ما أجي صلاة دي ما الله أقبله مصام الله أقبله شقة إذا ما إلهي ما أديب وأنا أكمي سر أنتو الدم بالكل ذي إلهي أديب أنت سكدي أنا شغلكم لي قالكم مركو تكان يهدو ساسي هاي أو ساس أفكريو إخواني صلاة سو خشوعية وخشوعية وهذا كتقفكم إنه إسلها أنا وحكست هدان سمايو ما خشوعك ما كود على إن هذه ما خشوع كرتيد هذا أساس سلادة هاي وحاد أوجاتها خشوع والشيء اللي سمين كوا هذا اللي سمين كريم تتكلم أمرين لكن محالي كود ديدية دم دقيقة كود ديدية وحكست هذا سميس قلبي الدنيا كب وحده أو وحكى لكيف كريه أو مشغول صن أو مالك كوكلا في صن وحكست هذا عم خشوعي ما خشوعي وقلبك وإنه النور كإلهي قلبك صاقله نور واي وحن خشوع بالنور كان مركا نور كاسو صاقله وقلبه خشوع يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم محود يجري أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أضونك وحو إلهي أقول وياها مركو سجود سنيا قرمان إلهي أقول واحد مركا تاقناها إنبو إجراء وكيف كريا مركا سجودنا ومركا أقول واحد واسجد واقترب إلهي فيري سجود إلهي أقول أيو إلهي تبارك وتعالى سجود مركا عمل ككوبات وكمل من أعمال القلوب وحوية قفك إنه صلاة كو خشوع عمل كلابات وقفك قلبي يسوء قبته وحويا وحل يراهدو النية قفك بركوز عبادي سنة إنه النية في عن لي مادو نية داس إخواني وحاد أقاتان عملك إيا عادة عبادة إيا عادة وحكا لسارة والنية شلنا ما كشي كينيني مركا فور سنيسو إنا ركوع تاي أو أجر لغاسينيو إيه إنا سكفور فور سنيس النية هذا كلا ساريس ولذلك حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم قف البقو يقان إمام البخاري وكتاب السكوب المحوها إنما الأعمال بالنيات عملك وقفك النية ديس أيوها أما إذا أجين قفك عملك وصمين حتى هدو يريهي هدي النية دي سؤال وحب بدنتهي عملك سينو عمل عجيب نقرأي النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت أحد بأهدين بقى أيمن رسولك إلهي وهدان دقالمو هدان إسلام مسلم معه وأن دقالك قلعوا أن تجند من قليا مركزوا النبي يقول ها نينك دقال كيبو قلع سمرك يوود انت النبي محوكو يري لقد عمل هذا قليلا وأجر كثيرا إن كان عمل يربو سمي لكن أجر آد وين بالسي أجر كاس محوكو هلي وحوكو هلي نيديس يسو كهلي إمام ابن القيم بقى وحودا هذا العجيب وليه هاي لبنن أما لبا قف اسكو صف كنت كنيسة يا صلاة دولا وحا أدحيسة انت نلقي عكا أدحيسة نينا وحا دعكت إنا لقبا أقبلين بقى قفنا وحا دعكت إنو سلادسة الضواب بقل أجر إنو كهلا ما دعكت والنية ده وحاس فرق سميني
صادرت هذا إلهي وحوليه سوى القرآن كنية كشكينية وحوليه هي ومن يهاجر في سبيل الله بل أيضا في ريا يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله قفكي قري سكبحا أصلا إلهي درت أهجرودي وحال نيستين هذا إلهي درت أهجرود قري قاد كصوب حدي مركبة واطمتي إن الهجرات أجر أهل قرية أنت كاقوات وأنية دفتر وحكي بدن أيضا وحكدرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله شهادة في سبيله صادقا قفكي إلهي ويديست الشهيد نمو أصغر رون أي كطاي بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه حتى هدو سريرتي سكت انتو شهداء بوس كودو هلا يا آخرهم بوسسك الشهداء إلهي والنية مركن نيدان waxa ku jira waa muhiim haday niyadaada ku jirto 5 daqiiqo ilaahay si shaytaan iska dheere jannana ku gal 4 ragcadood ama 3 ragcadood oo soo socota niyadaada meel fog bay gaaraysaa haday ka tahay waa la tukadeen masaajidka ku jirta iska tuko ama aadan kala jeclaynba maqalkiisa la gaaray iska istaag ay ka tahay oo waxyaabo kale aad xisaabinaysid ajirkaaga ajir ma helaysid صادرت النبي صلى الله عليه وسلم حديث كنية أقوياب كبدن وحديث النبي يقول إنما الدنيا لأربعة الدونك وحا اسكلا أفرقف تدك الدونك جوه وأفرقف رجل آتاه الله فقها ومالا من إله بأوحوسي علم يا مال فهو ينفق ماله فيما يقربه إلى الله مال كيسو حكوب بحياوحي إله أدويه يعني حكمة دي علمي جينا ضدك وبريا فهو بأعلى المنازل والدرجات ضدك أوصل رئيس ضدك يا أوفل بدن نين لا يسوق در مال يا علم سما ومال كذا إلهي درت أبحنا يا علمي جينا ضدك بريا صدقة وكاجه الريا علم بريد وكاجه الريا عبادة وكاجه الريا ملكس وكاجه الريا قف جاري كرم مجرم وأنك ضدك أوصل رئيس نين كلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن آتاه الله فقها إلهي بقى وحبر علمي لكن مال ما هيو وفقير لكن محمر والبلايا هاي الله هدو إلهي مال السين لها هبل وحو سميان لها وليه بكاسو النبي وحوليه هاي فهما في الأجر سواء لبدا أن الأجر كود واسكمد هل كانت كجوكتا نيو حارت ما نكسر $10 $10 $5 بحين قبل ذهب كذي دقيسة أذيك الذهب ما هيستين العقل ما هيستين قلبي قد كأويسة وحد نقطة ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون كو إلهي لها ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله قلت لا أجد ما أحملكم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وكلا وحد ما هيست لكن وحال هذا إلهي وهداد مال السين لهيد هبل أما هبل لا يوكلان نقول لها إلهي بوس كاسو فقارسين إياه والنيذا فيري نينك الله صدحاد وحنوي صلى الله عليه وسلم وانين إلهي علم ما سينين لكن مال با إلهي سي مال كيبو مركا اسكاقا دحبا تلق سنيا مع سيدة إلهي مد كان خبار كبحي مد كان شنامة كوغل مد كان كابل كوزو إجارو مد كان محان كودها وح كوغدو مد كان محان كودها خمار كو عيار مد كان عجلة كوسو قدو مد كان قبيل كبحي مد كان خمرة كعب مد كان سيجار كوغدو اسكاقا عياريا كان كوبادية اسكاقا عياريا علمنا ماله وأخبث المنازل والدرجات متك أقول لي ذات ننكاس وحبوبة هيستاية والنبي صلى الله عليه وسلم ننك أفراد وحوية من أن مال هيسنين لكن علمنا ماله لكن وحولي إلهي وهدان مال السين لا يهبل وكلام نقول لها الله هدان مال هيسن لا يهبل وكلام نقول لها صبايا إذا أرق مد وحسكج عليا هي نن أما هيساء أما البنه هيساء أما باسكت بول عيار وحولي هدان أنا العاك هيسن لها هبل وكلام نقول لها ومليونير عمل ناق مورال هو درك حيسيسو اللي هو ستار وهبل بي waxay leedahay alla naagta hadaa aniga haysan laha hadaan waxaas noqon laha milyaneer baan noqon laha wuxuu nabigu leeyahay fahuma fil wizr sawa dambigood waa isku mid aakhira waxa leeyahay kana la mid raac ilaahay oo seen ku raacay qofkan shaqo isku ma aan lahayn waxa leeyahay wuxuu sameeyaad qalbiga ka jeclay niyadaada marka niyadu waa wax weyn ikhwaani عمل كدن وحب الدلية مشين كحرا ونيدا نيدا وين تصال إذن سينا يعني تصال فيرية صلاة مركز للتكنية قف با صلاة دحلي ذي أوية قفنا وهردي سنية
fiiriyaba qof waa taagnaan la'yahay lugihii baa xanuunaya mid waa khushuucsan yahay waxa dadka kala duwaya waa niyada wax kale ma waa niyada qofka wax qalbigiisa ku jira way camalka saddexaad oo qofka qalbigiisu qabta waxa weeye xuduuru lqalbi fi lcibaadati markaad cibaadada samaynayso ada xataa khushuucsan oo haddana saas oo kale niyeystay waa inaad qalbigaagii keento waa dadku ilaahay lahaa ina fi dalika ladikraa liman kana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid waanada qur'aanka wuxuu anfacaa keliya qof qalbi leh qalbigiisi wuu joogaa horta qalbi buu leeyahay waana dhegaysanayaa dhegeysi ma mashquulsana wahuwa shahiid asaguna waa xaadir wuu joogaa meel kale ma jiro haddaad adiga markii la akrinayo qur'aanka iyo diinta iyo salaada qalbigaaga meelo kale uu ka fakerayo waxaa la yidhaahdaa imaam xasan albasri ayaa nin baa ku daba tukaday marka imaamka salaadii buu qasay xasan albasri wuu ku wareey salaadii miyay gaabatay mise way dheeraatay wuu kala garan waayey xoogaa buu iska daba noqnoqday salaadii buu ka baxay markuu salaadii ka baxay buu yidhi salaadii miyaan gaabinay mise waan dheeraynay waxbaa khaldamay nin baa maya waad gaabisay markaasuu seed ku ogaatay suu yidhi beer baan leeyahayoo markaa salaada gashaan beerta aadi jiray shaquu ka dhigtay wuxuu yidhi waan sii lugayaa beertaan tagaa nimankii shaqaalaha baan amar siiyaa beertii bay falaan markaan beerta dhammayno iyo salaada ka bixi jirtay hadda maanta waxaan ku ogaaday inaad gaabisay markaan albaabka beerta sii mariyaa salaada ka baxday waxaalayaabha aan la yaabay waxaa ka mid a qalbigu wuxuu keeno nin walaalaha ka mid ah mar wuxuu igu yidhi lacag buu haystaa marka lacagta kaash gurigay u taallaa wuxuu yidhi mar kaste oo aan seexdo ama aan salaad tukanayo waxaa niyada kusoo dhacaysa buu yidhi niyaho maanta lacagtii waa lagaa xaday waa la xaday markaasaa wuxuu yidhi waan walwalaya xaaskana ma rabo inay ogaato lacagta meesha u taalo guriga uu ka qarinaya islaanta marka meel bay ugu jirtaa wuxuu yidhi anoo walwalaya oo qalbigii axana salaada markaan ka baxaan salahi bi acuudu billah war waxaan waa shaytaan iska dhaaf intaa salaada ku jira wuxuu yidhi maantana waxaan ka fakerayaa haddii lacagtaa la xada maxaan samaynaya shaytaan wey waa shaytaan xataa muxuu shaytaanku samaynaya markaad qalbiga soo xaadirsood keento waxaad ilowday iyuu ku xusuusiyaa samaydan maqal naag intay u timid nin buu ahaa imaamu axmed bin xambal ayuu wuxuu ku yidhi alaabbaan beerta ku dhex duugtay meeshaan ku duugayna waa in loo maxaa sheekh su-aal la weydiiyaa su-aal diin amiya markaasuu waxaa su-aal diin amiya simay dee sheekh waxaan maqlay wax walbuu yaqaanaa ii sheeg meeshaan ku duugay dadka qaarkood waa xujo markaasuu yidhi waa yahay orod gurigaa intaad tagtay 2 ragcadood dheer tuka anaa kuu sheegaya salaadii markuu galay oo dhexda marinayay yuu geedku ku hoos duugay xusuustay salaadii buu ka baxay orod buu istaabtay meeshii buu soo qoday alaabtii buu kala soo baxay lacagtii hadhow buu sheekhu wuxuu sheekh run baad sheegaysa salaada markaan dhexda marinayaan xusuustay meeshaan ku duugay markaasuu aniga ma ahane waa shaydaanka salaada kuu diidaaya waa khinzab shaydaankaan dhahaynay wey oo markii qofka salaada uu galo yuu qofka sawir buu u sawirayaa marka camalkaasuu shaydaanku qabtaa qofkan saas u waswaasiyaa waana markii uu nabigu leeyahy sallallahu alayhi wasallam dadka qaarkood salaada waxaa loo qoraa nuskeed qaarkood thuludkeed qaarkood rubuceed ilaa laga gaaro cushur dadka qaar baa salaadii laga baxay 10 meelood marka loo qaybiyo hal helaya qaar baa eber kala baxaya salaadii kala baxaya waxaan rabnaa ikhwaani intaas wax yar kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam salaada suu ugu khushuuci jiray inaan bal tusaale yar iska siino nabiga salaada suu ugu khushuuci jiray sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha nabiga ka sugan waxaa ka mid ah caaisha waxay leedahay habeenada ka mid ah ayaa nabigu guriga yimid markuu guriga yimid buu wuxuu ila seexday meeshaan seexan jiray go' buu ila huwaday xoogaa markaan joognay ayuu wuxuu yidhi caaishoy idaa aan ilaahay u cibaadaystay uu kacay markaasaa rasuulka ilaahay anigu waxaan jeclaan lahaa inaad ila joogtidoo aan kuwa heshado shimaya ee idaa ilahay baan caabudaya caawa nabigu wuu istaagay salaad buu xirtay waxay tihi salaadii markuu xirtay buu nabigu oohin bilaabay sallallahu alayhi wasallam wuu rukuuca wuu ooyayaa wuu sujuudaa wuu ooyayaa suu u waday bay tiri oo u waday ayaa salaadii subax la gaaray aadaankeeda asagoo fadhiyo oo waxay tiri ooyaya ayaa bilaal gurigii soo galay bilaal baa nabiga kicin jiray sallallahu alayhi wasallam salaad subax tuu yimaado rasuulka salaadii waa la gaaray hatta nabigu inta badan salaada markii la aadaamo intaan la aqibin wax yar buu markaa dhinac isu tuuri jiray laakiin wuu soo jeeday wuu tukanayay
markaasuu yiri rasuulka ilaahay markuu arkay nabiga ooyay wuxuu yiri rasuulka ilaahay maxaad la ooyeysaa adiga oo dambigaagii hore iyo kii dambeba ilaahay ku dhaafa maba lihi dambi maxaad la dhibaysaa ma iska raaxaysatay markaasuu nabigu wuxuu yiri afalaa akunu cabdan shakuura وهدو إلهي إيدن بدافع ميانا كل شكرينين وصلاة نبي تك صلى الله عليه وسلم ما نقول جرا إنك وليجا ما براكتس كريسة ما تعدي همين هذا كم إذا إن هذا عاول صلاة سوجت هذا أوي مس صلاة السيل لو أوي ما تقاند ضلك قار كود وحيكوليه وليجا إلما إجماع إيمان إلهي درت بل بركو القف أوي ولا يابا ولا يابا وهذا ذكرت ninkan oo quraan akhrisanayo oo ooyaya xaaskisa oo u timid markaas waxay tiri walaal maxaad la ooyaysaa mareerihiina geeri lagaga soo sheegay maanta markaas may quraan baan akhrinay war guriga naga dhex ooyina nin raga tahay or nin raga iska dhig nin weyn baa tahay fiir waxay u haystaan ba qofka ooya macnaha ma yaqaanaba qofka si loo ooyo qof qalbigu dhagaxaya qalbiga noocaas ikhwaani waxaan leenahay nabiga maxaa ka oohinaya nabiga quraanku akhrinayo awoodi safiiriya maalmaha kamid ah ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri Abdullah ibn Mas'ud wa khushuucda nabi markaasuu wuxuu yiri iqra alayya alquran quraanka igu dul akhri ya rasuulallah aqra alayka wa alayka unzil ma adigoo lagu soo dajiiban kuwa akhriya markaasuu igu akhri inaan qof kale ka maqlaan jecelahay markaasuu wuxuu bilaabay suuratu nisaa nabigu dhageysanaya sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Mas'ud wuu akhrinaya ومنظر عجيب عبد الله بن مسعود القرآن كأخر النبي ودقيسني مركزوا حي مركان سوغاري فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا أيوه حي حسبك نبي كان في ريي مسين ليس إلما كذا هذا ناس النبي صلى الله عليه وسلم ووحيابله عثمان بن عفان حاسك markay ka sheekeynaysa waxay dhigi jirtay hameenkii oo dhan wuu ooyi jiray baa la yiri ilaa labadaas wuxuu ku yeeshay laba daliigadood oo madmadow oo oohin ilma Aisha wiilay habaryad u tahay wuxuu leeyahay Aisha gurigeeda aaday wasiiriya gurigeedan aaday markaasaan waxaan u imid ayada oo taagan oo akhrinaysa aayad quraan salaatu duha tukanaysa barqadi markaasay akhrinaysa فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وحير مدان كرتاغنا وحربي إنا وحويدي وهبريرتي مركان أي كب حويدي بان اسكاجتغي سوقان آذي وان صاد دانايستي وان صاد نقضي ولي وي تاغنتا عايدي بأخنا سوي أويسا ولي وي أويسا مركاسان وحوي اسكاد عافي شير وخشوع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم همين كلها همين هذا كم إذا الصقر أو مقالة المدينة دحلو جينا يوحوم مقليب عليه قف دمره قرآن آخر الناس حيل هذا هاي بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أيضا سأخ نساء نبي أنتو استاجيبوا وحوي نعم أتاني أيضا محيل هيسا مكوت تمد مدي غاشية هذا ورك هذه كسونا وحولي ها هو يتم وحالي النبي سوء ده نعم أتاني أيو انتو فالإستيب أوهن بالله وهل آية هل أتاك حديث الغاشية وهذا يعكس إننا نقام النبي صلى الله عليه وسلم خشوعية هل كآية خشوعية مركب خشوع دي النبي صلى الله عليه وسلم يسيدوها وحرب وحير إن كشكينه موضوع قيب كمذا أو آد مهم أو إن سيد هذا بخشوع ده maxaa keena oo qofka ugu kaalmeyn kara inuu khushuuco shiri waxyaabo ma jira qofka waa loo sheegay dadka inaad khushuucdid laakiin maxaa qofka ugu kaalmeyn kara inuu khushuuco waxyaabaha ugu kaalmeyn karo ugu horeeya ikhwaani waxa kamid ah salaada marka la tukanayo istiwaa'u safi horta safka in la toosiyo safka hadii la toosiyo dadka tukanaya qalbigooda wuu khushuuca wal fiirsada ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه هي ما لي أرى الشيطان خلال صفوفكم كأنه غنم والروحان أركا الشيطان كسر حقلي اللغيه إنه أدمودا أري بدمودا ونجيدا اللغة اسكت الدوية هذا اللغة اسكت دوية سان الشيطان مصر حقلي كم صادت هذا وحال السماء اللغة قيبت الضمب عرفت هذه قفل بميل استاغو أو ضدك أكل عرران
shaydaanku wuu soo dhex gelaya marka waa inaad ka celisid booskaa shaydaan inuu soo dhex maro lugta aad ku xirto waana xadiidka nabiga sala allahu alay wasalam maxaa isku xiray safka iyo khushuucda ikhwaani qofka safka kugula tukanaya adiga saamayn buu kugu leeyahay ninka qofka garabkaa ku tukanaya hadduu ooyo waad ooyeysaa soo ma hadduu ninka garabkaa ku tukanayo hurdoodo oo uu hamaansanayo halaaqoonayo adigana waad halaaqoonaysaa waxaa la yidhaha shaydaanku marka uu qofka geli waayo safka ninka kula jira buu usoo maraa ninkan intuu u tagu wuxuu leeyahy ninkan kugu xiga waa geli waaye salaadaan rabaa inaan ka qase bal adigu iga tawasul igu sameeyo ninkaan igaarsii ninkaan iga ergee si aad uga ergeynaysa adigu isma ogid waxaad bilaabaysaa halaaqood iyo inaad hurdood ninkan wuu ku fiirinaya ninkaan muxuu samaynaya xoogaa markuu fiiriyo isle wallahi salaada dhanba waa boorinba meesha dhanba waa meel eber qiraa'adan iguma socota imaamka wuu dheereeyey dadkii waa hurdaysan yihiin adigina hurdaa ku gelaysa shaydaanka ogow ninkaanu kusoo maray laakiin hadduu ninkan ooyi lahaa adna waad ooyi lahayd walidaalika waxay dhihi jireen salafku ina shayطaana yatawasalu min biaxadikum qofkiinbuu shaydaanku qofka kale ugu tawasulaa wuu u marayaa jaranjar buu ka dhiganayaa safka hadduu mar soo dhex galo wuxuu rabaa inuu ninkaa soo galo kan u gudbo ilaa u dhameeyo safka dhan laakiin haddii loo diido oo qof walba uu diido meeluu ka gala ma helayo qodobka labaad oo keena khushuucda waxaa weeye ducada leha ducaa listiftaaxa inaad si fiican u akriso ducaa listiftaax waxaa weye ducada lagu bilaabo salaada markaad tiraada allahu akbar ducadaad akrinaysa inaad macnaheeda ka fekerto nabigu sal allahu alay wasalam ducooyin 3 abuuna baray 3daa duco midaad akrisid oo midda kale waa ka qiimo badan tahay subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika tabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaha ghayruk ama wajahtu wajhi liladii fatara samaawaati walard ama allahuma baacid bayni wa bayna khataayaaya akhri inaad duca akriso ducadaas markaad akriso maxaa dhacaya qodobka saddexaad waxaa weeye istixdaaru cadamati salaa salaada weyneynteeda iyo qiimaheeda inaad soo xaadirsato waxaan aad samaynaysa waa wax weyn wey waxyaabaha dadku sameeyaan maxaa ka mid a haddii maanta lagu yidhaahdo meel baad kelimad ka jeedinaysaa 10 daqiiqa waxaad dhici karta inaad practice badan samayso si aad kelimadii si fiican ugu dhahdo soo ma debate baan leeyahay qofku buu leeyahay yaan leeyahay waxay dadka intaas bay waxay leeyihiin waxaan baranayaa sida waxaas loo waa practice baan sii samaynayaa sameynaha dadku salaadii markaad tukanayso waa inay kula weynaato oo isla xataa practice u samee saad u khushuuci lahayd saa darteed meeqee aayad oo qur'aan abuu ilaahay iska daba keena oo ilaah u leeyahay salaada ooga hagaajiya salaada meeqee aayadood haddaad tiriso waxaad tirin kartaa 20 aayadood ka badan waad tirin kartaa bal xusuuso aayaadkaas waxaa ka mid a aayaddu ilahay leeyahy wa aqiimu salaata wa aatu zakaata warkacuu maca araakiciin waa ka mid waxaa ka mid a aayaddu ilaahay leeyahay waquluu linaasi xusna waaqiimu salaa waaatu zakaa waxaa ka mida faida طma'nantu faaqiimu salaa ina salaata kanat cala lmumin kitaaba mawquuta waxaa ka mid a waaqiimu salaata waaatu zakaata waaطiicu rasuula lacalakum turxamuun waxaa ka mid a waawxaynaa ilayhim facla alkhayraati waiqaami salaa waitaaءi zakaa wakanuu lana caabidiin waxaa ka mid ah waan aqiimu salaata wattaquuh wahuwa aladii ilayhi tuxsharuun waxaa ka mid ah maanta o dhan haddaad wadid aayaadkaas waa beer camal waad ku dhex wareegi kartaa waxaa ka mid ahayd aayaddii ilahay nabiy llahi muuse uu ku lahaa iyo haaruun ilaahay uu ku lahaa wajcaluu buyuutakum qiblata waaqiimu salaa baa ka mida waaqiimi salaa aayaadka tiraday ka bateen intaasoo aayadood suuradda ugu yar oo lam yakun soo kuma jirta xataa soo kuma jirto maxay ahayd aayaddii wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diin xunafaa wayuqiimu salaa fiir aayaadkaas oo dhan kelimada ka dhexaysa waa maxay kelimada ka dhexaysa waxaa weeye salaada hagaajiya fiir ilaahay ma dhahayo salaada tukada qof kasta salaada wuu tukan karaa qof kasta ilaahay kama aqbalo fiiri waxaan la yaabay aayaadka ugu dambeeya suuratu aali cimraan haddaad akrisaan
إلهي وحكشة كين يا ضدك مركي عبادة يا ضد آيات اللي يروي النبي مركا وكعهمين كي أنتوا الصلاة كنبوا آخر نجري آيات وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فيري آيات كلية فيري وحبان كاتو سيئة وحولي قف كاسي ربنا ما خلقت هذا باطلا إله يوم الدان سبضوا فيرنا لك فيرنا إله عيار ما أذر أبور ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار مركاسو حولي ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربي جينو متك أدنى أرتقل سوى الدليس آيات كسر وأمان فيري ولي إلهي مو صبر ينقف كان مركاسو حولي هاي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم إلهي أنو وحان مقلي مد واقعي أوضاها يور إلهي الرمي وانا كرمي واحد قرب توان سمي في القف كان معناها قلبي سكوت مركو الدعاء أخرنا مما هرديسانو ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة هذا نقول هاي الدعاء لا ما أقبل صوت قلبي قاعد مجهو مركو ساس له هدنا حوليه فاغفر لنا ذنوبنا إلهي وساس أن الذنب قد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إلهي ورسول هذا عرب كودا وحي أن نوبل قاعد النسي إلهي وحي أن نوبل قاعد النسي مكاسول إنك لا تخلف الميعاد فيريا انتس وحان صوم الري شن مسلح ربنا ولا أصمه إلهي محيري فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ربي قد وحو جوابي أو يري أنه وان كأقبلا متك عمل كالسماية أو دلالة عمل كسا لما تقول متك الدعاء سنة نك سوى الدعاء سنة كرا لكن من كان قلبي سا شقا قبنايا نك سوى التكن كرا لكن من كان قلبي سا تكنايا قلبي هدود تكنو فيري النبي صلى الله عليه وسلم خطبة أخرني وخطبة عادية محاضر وجيدنيا خطبة جمعة جيد بو كتير صلى النبي صلى الله عليه وسلم جيد كان قرآن كيبو مقلة يا صوما جيد كي أخشوع مالنتي لبعض بو النبي يمد بساجك صلى الله عليه وسلم منبر بان النبي قال الله إصي جيد كيبو رافي منبر كيبو فولي جيد كيبو أوي قرآن كيبو ربا نقول أخني وأوي جيد كيبو أوي الرسول كلا محايا يقتقيسا أنا قرآن كأباهم مقاسو إلهي وحوي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا القرآن كان بور كدو الدجين لهين بور تو دلالي صد أركي لهذا وكلا قوقو عيس بور وي بور عادية لكن قفك قلبك بني آدم كقرآنكم مكره بني آدم كمحل قسمه متغنى قرآنكم مر وحيدها من ماء مهين مر وحودها من نطفة مر وحودها من ماء دافق بودها biyo xaqiran biyo waxa laga sameeyay hadaa afuufta dhalaalaya oo dareeraya oo hadaa saa u tirmaaya ayaa dhagax ka daran oo ilaahay uu leeyahay thumma qasat qulubukum fahiya kal hijarati aw ashad qaswa wax kasta hadii lagu akhriyo ma yeelay ma dhalaalay waa iska taagan waa dhagax halkaas iska taagan hadoo marka salaada la tukado waxa dhici karta inuu ku yiraahdo sheekh salaada way dheereed aad bay u dheereed way dheereed waxaan xasuustaa odayaal masaajid baan hameen nin marti ah nooyay masaajid aan imaamka markaas waxaan na tuji nin sheekh salaadii buu galay laba beej xataa kuma akhrin hadda odayaal badan baa nin walba wuxuu leeyahay sheekh waa isku kaashacaaw kaadi baa iga imaan rabta kaadi ninkana tujinaya muxuu ahaa masuuratu baqaru ninku akhrinay a'uudu billah war subax buu nagu dul diyaarinaya dhamal ma ardayba odayaashana waa qeylnaya war sheekh ninka xataa laba beej ma akhrin ana dhageysana ku daw tukanayay markaas la maya sheekh waa dhiman nagada dadka masaajidka ay imaanay nagada واساس مره بان قران دير قف hadii la bilaabo aayad yar uu farxaya qof hadii suurad dheer la bilaabo uu naxaya maxaa dhacay inuu taagnaado sirri waxaan shaki lahayn ninka saas u qaylinaya oo waa arteen ducada witriga 20 daqiiqo haday gaarto nin baa hameen wuxuu yiri oday ah sheekh caawa samadi asu ka kala furtay annagana waa dhimanay adigana adduun kala isku jirtayba annagana waa dhimanay marba luku istaag naftii aga dhacdo 20 daqiiqo hatta ma ana ducaynay ninka saas dhahayo waxaan hubaa haduu banaanka istaaga 2 saacad uu taagnan kara
تاجنان كلام محل يجري محل صوش يجي هبلاي بحك بود هبلاي حك بود يقولي وصار هذا وفير صدق وحدا أكثر مرة محاضرة صعدة علمي بقى صعدة أنت علم اللي فائدة سنة علمي جيا فائدة سنة نك اللي جاي سنة نك هلا أصعب معرض وحوي النار صوته نك وحو الشيء جيو هدوس كل من النار بقلية هدوس حتى خلط قال النار بقلية وأنا أصعب خطر كجرا قفك هلاي كيد جاي سنة حتى وقت واحد يعرف إنه سر أودين أما بنان كتاجين أما جلال بكشكين يعني من أثر التكتاجين وما لقيسن كر وقت هاي لكن شكل وقت وهاي وحسب حكينا وحان الصلاة مركز القلب جاي كنت عظمة هذا وقت وينان تهذا وتكون خشوع عيسى أن صارت هذا هل حديث أو يابل حديث كاس مركز طول آخر يديد صلاة وسيج على نساء وسيج على نساء حديث كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم أو داود دوري وحوليه هاي 5 صلوات افترضهن الله 5 صلوات با إلهي إذن كفر ديالي وعشان مركزو النبي يقول صلى الله عليه وسلم من أحسن وضوءهن قفكي ويسدو ده هجاجية والحديث كان دقيسته والله هو حديث وحيد أهان مركي وحا لي يابان وحا سواء بيج ذهب على القرى حديث كان وكقيم بديه بيج ذهب على القرى وكاسو النبي صلى الله عليه وسلم قفكي ويسدو ده هجاجية وصلاهن لوقتهن وقت جوده كنت كذا وأتم ركوعهن وخشوعهن الركوع ذا يخشوع ذا بقى العالية ركوع كلمة شكل يخشوع ذا بقى عهد على الله إلهي وحب لن أقاضي أن يغفر له إنه قدام الناف أظن نظيفة إن البحر وحكاحك تكلي يصدح ركعة مخرب كصاصعت إن أظن واحد دنبي ألهم سايتك كبحر لكن واكا وقفك إلهي خشوع ذا الركوع ذا مركزو النبي صلى الله عليه وسلم قف كان ساس سمينين إلهي بلنكم عليه هدور هبا ودن بدافع هدور هبا نوع عقابة ما حديث كواح كوين بعد أركتين أو صلاة وقيمة بعد أنت كل يهداد قلبي أي كجرته وحدي جري عمر بن الخطاب مركو ذاتك الله إن أهم أمركم عندي الصلاة أرثميه إن وحا إلى مهم سوا صلاة بل هو يوينك يا أبا حديث كان دقيست أثر كان عمر بن الخطاب وحوليه عرور بقى جوجتا حاسس بقى جوجا وأرهنك أمهم صن أو ما أنت أن كفكر يا وصلاة دين أيود يجري فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه قفك إلالية أو أيضا وقت هذا إلالية أو تكذا أو صفي عنه إلالية دين تسوء إلى شضي ومن ضيعها فهو اللي ما سواها أضيع وأضيع قفك هلا يا صلاة وحيابها كلو قسي هلا ينبدنيا هذا صلاة إلى لسه وحكستوي كوتوس إلهي بقى كوتوس هذا صلاة دي هل يصير وحكست إلهي بقى كهلاي شيء وحياب له وحيابها وحكمد أن وحيابها صلاة ضلوا خشوع وحكمد الحضور إلى المسجد قبل الصلاة صلاة الكهر إلى المساجد كبوس كنت كنيس السيكش وسيدا أن سومريني سلف كي حاتم أصلا وحد يجري marka maxaan u leenahay inaad xoogaa soo hormarto waxa la yiri qofku markuu hadda adduunyada ka soo galo suuqa aad ka soo gasho shaadin ba kula socda shaadinta qaar gangisare ah ku jira haddaad saa u soo socotay salaadii gasho mudday kugu qaadan dagaalkiina inaad jaftid mudday kugu qaadan laakiin haddaad laba ragcadood tukato oo fariisato oo fakarto oo soo ururiso fahamkaagi oo qalbigaaga aad soo ururiso ayaga oo si yaacayba صلاة الجارية صلاة مركز لا أقيمتك أنت كلا إسرائيلية صلاة خشوع سبب تكنيسة لكن وأنا كنت لقش منك الدجال كجلية وسيد ياريا سما وأنا الحاجة الطيم هش فكرته وي مركز إنا المساك حاجة كوسي هربرت صادت النبي حديث صلى الله عليه وسلم تذكر قاركو سود دقيان بإلهي دبو دقا سيري من باب النان كتاجن سبحان الله خطبات جمعة والوجرة وحسوجا يا إني دوات حاجة مسوقايا وحسلي هاي انت بالخطبه هاف كور ku dhaafayso een hal gaaro meelaha taagan ilaahi baa dib u dhigi doona qofkaas een midda saddex een kale waa qodobka shanaad waxa weeye isticmaalu siwaak in qofku uu cadaysado markuu tukanayo ma arrinkan dhageysta nabi sallallahu alayhi wasallam adigu muxuu faa'iideeyaa madharatun li fami mardatun li rabbi afka uu nadiifiyaa إلهنا وخالق ليا
waxyaabaha yaab kale nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sameyn jiray Aisha waxay tiri waxa nabigu markuu gurigiisa soo galay muxuu ku bilaabi jiray waxay tii caday buu ku bilaabi jiray asoo wax kala sameyn qof la hadlin ayuu caday ku bilaabi jiray salaad kasta wuxuu dhigi jiray lawla an ashqa ala ummati hadana ka baqayni inaan ummadda ku dhibo shanta salaadood mar kasta oo ay salaad tukanayaan waxaan amraa inay cadaysadaan la amartum bisiwaaki inda kulli salaatin inda kulli wudu'in wa hadith kale وأثر ورواية كلام مرك عذيقة إن وحيابها وحكمد عذيقة إخواني وحاسوق قليل عافانا الله وإياكم ضدك قار كود وحد أركيسا وحصوعنا يا بصل يا طون يا وحقرة يا صفكي وسوق قليل ضدك وصواسنا يا قار كود سيجار وسوع ويا أصقو قيع يوم ساعات سوق قليل ضدك وصواسنا يا iskada dumarka waxaan arkay gabdhaha waxay Ramadaanka waxay dhahaan masaajidka dhan sambusa ka soo uraya dumarka ma dhahdaan isu dhaama macna waxa dhigtay in jika ka soo baxay u soo socota iyadoo dharkay jikada ku jirtay oo tii masaajidka imaanaysa masaajidka dhan waa saambus wallahi gabar baa waxay igu tiri intay soo wacday waxay igu tiri masaajidda dhan kuma tukado Ramadaanka maxaa dhacay wiswis baan qabaa markii sambusa ii soo urwa mantagaya سامسا كورا وارون ضد بدن باكي أشياءنا نظافة إخواني واح مهم أوي واح مهمة قفكو إنو عضي صدق بصل عن طان عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ورقفكي طان عنا أما بصل عنو مساجدنا إيماني ندى نقدر يرو حتى صلاة الجماعة فرض كوما مركز وعدودار مالها كنتكو سوقها كنتكو أم جروها كنتكو إسكان نقو ما دعي كرتا إن رجع قاركود أي ضدك قارو حاجرة واحد كسر واحد كفاء إيديست إنه نهان شاخ ما أنت عودار بيسيه مركز سلام صور ده بصل إسكب وحي مركز كأرت مساعتك كعر عودار من قناة تاس هذا حال الله اسمع على من قناة لكن هذا كود على مركز قاركود والنقناة عودار مركز قاركود لكن هذا أقول تلاقشوا من قناة وحد قناة ساون متكيري سجار وحد وحنكال لنا السجارك مساعتك سوق سو سجار عباية من هو حوي الشيخ سيجارك مركان عباية السنة يا ميدك تينا كعبة أما إنا بسم الله السنة ما حي سنتها بسم الله إنا هذه نك هو عباية والسنة حرام بعباية معناه مركا وأساس سجوا قفكي أسجوا هالليسان هدوم ساعتك صاقلوا وأركت هذاتكم مركي بعد يدا يميلها آذيان وس عرفنا يا وس قرحنا يا ولبسنا يا وأعرف في عنبو حرنا يا ساعتك مركو ساء آذيانا قميصك هو سقط بهم ساق هذا يا soo qaadanaya waxa dhar uu san qof kala hortageen soo qaadanaya bal dhalinyarada waxa taqaanaan ma cadaysadaan wuxuu ku leeyahay salaas waxa cadaysada hurdada iga tagaysa taas weey hada cadaysada hurdada iga tagaysa nalka lama daaro dhalinyarada ruulkooda ka mid tahay markay tukanayaan salaas waxa nalka lama daaro hurdada ka tagin lama cadaysado waa la weysaysaa laba ragcadood boobsaal tukada waa la seexdaa waa lagu noqdaa marka salaada waxaas cadayso wa mardaatu lirabbi khushuucda cadayga keena نظيفين تاكنت وحد في رسان قدب كل حد حوالي الطهارة قفك إنه طاهر يهي مركو تكني طهارة وحاسوق لي جس جركاجا إن دتكون أي بسنين أظن هذا بسنين إخواني بقول في رسالة مركز نظيف تتهي على اسكو كالصون أنت قف كده الجاري سما مركو إله لا خذوا زينتكم عند كل مسجد والمركز تكني سان اسقرحية أو در قرحان حفتة أو إسهاجية وحوية أضاء اسكو كالصون وخشوع عيسى لكن قف أساقي بدتك بسنة يعني أسناء اسقب ما خشوعي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكد يجري إن دتكو أي أيجا أو نين وحاجري انتو كين المجال إن عيادة سرع حديث بخاري أيو النبي الصحابة سوى الجمعة والصعودة مركزوا النبي وحجري سوق بيستا مكان ساعات كإيمان إنسان صون نظيفية قفكو أصقوا أو نظيف سن ساعات كهي ماذا وحكم التهي وحيابها خشوع ذا فائدة يبقى كم التهي وحكم ذا وحيابها خشوع ذا فائدة يا إخواني أو يابك لو حكم ذا إزالة وحكست أو قفك صلاة ذا كم مشغولين إياه إنه قفك استعفيه بالغضب كان في رصدق وحكست أو صلاة ذا كم مشغولين إياه أنت صلاة تكنن استعفي محاكم ذا وحيابها قفك مشغولين إياه وحكم ذا كو لا صلاة إلا بحضرة الطعام حديث مسلم وري أسوي راشن كويالو صلاة تكنن
raashin baa lagu soo dhigay ha isdhihin isdhaafi salaada horta waxay dadku dhahaan cishiyaa isugaaye ee ii kaadi shaqadu ka imaanaya wuxuu leeyahay markii saan qof ula hadlaya uu dhaho I will call you back 5 minutes ka gaarsii baan daawanaya markuu xayeysiiska soo galo inta xayeysiisku socdaan ka gaarsiiya halkaasay ku aadinayaan fiir meesha ugu liidata waa isdhaafi iyo culeyskeeda ku sugin شكرا وامي علص صلاة ما عصلا لكن إلهي بعد هور استاجيسا تصوروا إلهي بعد هور استاجيسا وحكم إذا وحيابها إبه ضدك أول ربع إن لا إسرافيه هدي كادك وهيسو صلاة متو كنكرت والله في رصادة مسخول بعضو بهانت هيسو معها متو كنكرت إلا مسخوش عادقش فيري وحوي الله يصلي وهو حاقن حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافع الأخبثان ما مسلم باوري أصدق أو قفك علينيو وحيابها حنحنكا سحرة أما كاذدة اسكو علينيو أما الناف اسكو علينيو صلاة يستكن صلاة ستن مجو قلبي يسمجو هذا قفك كاذي هيسو صوت أوائرك تقفك مركي كاذي هيسو نعمة إلهي وحقفك حصوصتا مركي كاذو أي كتم هذا أي هين لكن مركي كاذي سحون وهيسو ما خشوعي كرو محاكمة waxyaabaha quruxda ah in la iska ilaaliyo oo hortaada yaal darin qurxoon darbiga wax ku dhagan saacad masaajidka hortiisa ku dhagan oo dadku fiirsanayaan waa in la iska ilaaliyo haddii hadda saacadan xagga loo soo jeediyo rag badan baa ku mashquulaya haddaan kaa tusay taas ninka fiirinaya sheekh waa in la edbiyo muxuu ka doonaya halkaas waa nin niisa kor u qaaday taas ninka fiirinaya laakiin tan oo kale way dhici kartaa salafkii nin kamida imaam ahaabaa masaajidkiisa nin baa yimi markaasuu yidhi halkaas waxyaabaha ku qoran baan akrinaya markaad tukanayso suu yidhi intaasoo sana masaajidkan imaamka ay weligay ma arag wax halkaa ku qoran maxaa adiga ku tusay maxaa indhaha halkaa ula aada adiga laakiin haddana saasoo tahay waa in dadka hortooda laga wareejiyo oo gadaal la mariyo si dadka ugu mashquulin haddii kale qof muxuu samaynayaa shaydaanka wuxuu ka dhaadhicinayaa saacaddaada hal daqiiqay dambaysaa saasuu leeyahay salaada tukanaya salaada saacadda ku timaynaya midaan maxaa ninkaas uu salaad tukanaya qalbigiisa ma joogo ninkaas oo kale Aisha waxay istiribari nabiga sallallahu alayhi wasallam guriga u qurxi oo gurigii nabiga marka daah bay ku xirtay nabigu markuu salaad tukanayo daahibu daawada waa bini aadam waa bashar markaasuu wuxuu yiri markuu ka baxay salaadii wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam amiti qiraataki hada ya Aisha عائشة نجا زولي أميطي عنا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي صلاة دمر كان تكلم سوي شيء هر إيمانه يأ نجا هر قاد رحم إسنافي حد يقف هذا فنانده وحكشر حيه قبل هر تاجين هاي والآخر نساء وكون قرحني يا شيطان مرك إلا سكيل عليه حتى وحال الديدي برنامج حكمة السفيري إن تكدب تكته قف شاكين أما قف هردا وما أقلا والنهي لما قف شاكيسين أما التلفون بكره للجلاش كنت كن وهذه عكت إناث فيرس هذا الكيس مدة هردا هكذا وتكن وهذه عكت إناث فيرس صار دعوت قف كان سيبه هردا سان وحباش هدان كوسا وريا هكذا وتكن كله كعر حديث كي أنبجانية أبي جهل وحصتان نبي يقول أوجية ومدة كلا يقصق هذا موان فيريي مرع على مال أنتو كنتو كذا النبي صلى الله عليه وسلم إخواني وحاكمت أو حيابها صلاة الله ربه إن لا يسكيل عليها وحاكمت مركو قفكو تكنيو بارين كان فيريا واردتكو بدينهين ألا يشتغل بتسوية الحصى إن هذا وحتو توسين هذا اسمه مشغول ما أنتوا عمامة توسيسو قميصك توسيسو maxaan ku dhahaa xijaabka toosiso meesha ku tukanaysid iska sinsin waxa ka ilaali waxaas ha gelin haddaad inta kaliya isku mashquulisid nabigu wuxuu arkay nin salaada markuu tukanayo meesha hortiisa simaa waa dhagax meesha lagu sujuudayo wuu sinsimaya
markaasuu nebigu wuxuu ha samayn hadday khasab kugu tahayna hal mar samee hal mar intaasaan dhahdo isku aadisatay faraha ka qaad laakiin maantana isku celcelin qof waxaa arka salaada markuu tukanaya maanta dhan gacanta ma joojinayo mar waa xoqanaya mar saanuu leeyahay mar maradu tootoosanaya mar qofkaasi qalbigiisu ma khushuucsana imaam ibnu qayim waxaa jira hadal uu leeyahay waxay culimmadu dhahaan hadalkaa imaam ibnu qayim loogama horreynin muxuu yidhi wuxuu yidhi baa la yidhi qalbiga ayaa maamula khushuucda xubnuhu ma milicsadaan gees ma fiiriyaan ilaa qalbigu gees fiiriya marka qalbigu baxaa xubnuhu baxaan gacantaan marba meel aadaysa qalbigii aan joogin laakiin hadduu qalbigu joogo gacantaan way xasili lahayd saxaabada nabiga waxaa la yidhi markii ay tukanayaan xadiisku weli waxaa markuu nebigu hadlayo xataa salaad ma ahayn waxaa loo malayn jiray madaxa inay shimbir kaga taagan tahay qof madaxa shimbir kaga taagan tahay oo haddaad dhaqaaqdo way boobaysa way duulaysaa muxuu sameeyaa ma dhaqaaqayo soo ma dhaqaaqayo geed camal wey saasay u istaagi jireen waxaa ka mid ah ikhwaani masaladan waa masale muhiim ah dad badan baa ka dacwooda cadamu tashwiish dadka kula tukanaya inaada waswaasinin waswaasintaas maxay ka timaadaa xadiidka nebiga fiiriya bal nebigu wuxuu leeyahay alaa ina kulakum munaajin rabbahu war idinka dhan rabbigiin baad la sheekaysanaysaan nin kasta ilaahay buu gooni ula hadlayaa falaa yu'diyana bacdukum bacdan qaarkiin qaarka kale yuusan dhibin walaa yarfacu bacdukum calaa bacdin fi lqiraa'a qur-aanka aad akrinaysaana kor ha isugu qaadina waa xadiis abu daawud wariy qaarkood dadka subxaan allah waxbuu akrinaya faatixadii buu kor u akrinaya dadkii waa waswaasaya hadduu ninka kugu xiga uu wax akriyo wixii baad dhegaysanaysaa laakiin waa in dadka shib ay dhahaan dadka dhan bishimaha wax ka akri laakiin yaan codkaaga la maqli haddaa codkaaga la maqlo dadkaa waswaasinaysaa codkaa hadii la maqlo waana xadiiskii nabiga sal alla alay slam walaa yarfacu bacdukum calaa bacdin fi lqiraa'a qaarkiin qaarka kale yuusan kor ugu qaadin qur-aanka u akrinayo ee ha ka fiirsado waxaa ka mid ah markii salaada la tukanayo waxyaabaha la rabo inaad khushuucdid inaad samdarta inaad khushuucdid cadamu tathaawub inaadan marra hamaansanin hamaansiga sooma taqaanaan ama halaaqoodka qofka dhahayo afka kala qaadaya inaadan marra samayn maxaa dhacaya nabigu wuxuu ley sal alla alay slam idaa tathaawaba axadukum fi salaati falyakdim ma stataaca hadduu qofku hamaansado intuu awooda ha celiyo fa ina shayطaana yadkul shaydaan baa gelaya shaydaan baa ku gelaya celi seed u celinaysaa gacanta afka saar celi haddaada isku celin karin gacanta afkaaga xir haddii kale shaydaan baa ku gelaya haddaad shaydaan albaab u furto oo uu ku galo ma soo bixin karti wakti bay kaa qaadanaysa dar inaad soo bixisa marka waa waxyaabaha keena khushuucda waxyaabaha keena ayay waxyaabahaasoo dhan ahaayeen ikhwaani waxaan kusoo khatimayaa mawduuca muhiimadda wax walba muhiimad bay leedahay darsiga aan akrinayay caawa iyo xalay muhiimadiisa dhan waxay ahayd oon rabay aan idin xusuusiya anoo nafteydana xusuusinaya waxay ahayd qofka cibaadada uu samaynaya qofku cibaadaadku way kala duwan yihiin cibaadaadka qaarkood haddaada ku khushuucin waxaa laga yaabaa dantii laga lahaa qeyb ka mid ah inaad waafaqdo walu fiirsada ka soo qaad waad soontay xataa ilaahay darti kaama ah xikmadihii soonka ku jiray qeyb ka mida waad helaysaa oo qeybta ka mida helaysa waa maxay inaad gaajooto oo dadka gaajaysan aada xusuusato dhibka ay ku jiraan waa xikmad soomaa soonku lahaa waad helaysaa caafimaad haddii laga heli lahana waad ka helaysaa haddaad zakada bixisa xataa hadday ilaahay darti kaa ahayn xikmaddii laga lahaa qeyb ka mida waad helaysaa oo maxaa ka mida zakada xikmadda laga leeyahay in dadka masaakiinta alla quudiyo masaakiinta cuntadii way helayaan haddaad xajka aado xataa hadduusa ilaahay darti kaa ahayn xikmadihii qaar ka mida waad helaysaa maxaa xikmadda xajka ka mida inaad dadka muslimiinta jamacooda ka qayb gasho haddaad jihaad gasho asagoon ilaahay darti kaa ahayn xataa xikmadihii qaar ka mida waad helaysaa gaal baad dilaysaa dad baad dilaysaa soo ma ama caraa kaa baxaysa soo ma ama dad baad u gargaaraysaa laakiin salaada haddii aadan khushuuc la imaanin xikmadeedii dhan ma helaysa
maxaa dhacay salaadu fiiri maal lacag lama bixiyo lama gaajoodo safar lama galo dhiig lama daadiyo waana camalka camalada ugu sarreeya iska soo gal masaajidka istaag foorarso soo kac dhulka wejiga dhig iska tootoos 5 daqiiqo kadibna ka bax ma saasaa salaada ay noqonaysaa camalka ugu weyn oo xataa jihaadka lagu baaba'ayo ka weyn salaada waxa weyneynaya taas baa waxa weyneynaya waa qalbiga haddii qalbigaagu uusan joogin oo meel kale uu jiro wax kale aad ka fakerayso adduun kale aad ku mashquulsan tahay hawlo kale aad kala xisaabinayso waxba salaadaada kama jiraan waxaad kala xusuusataan oo darsiga aan aad ugu celcelinaynay waxaa jira shaytaan la yidhaahdo khinzab shaqadiisa dhan waa maxay inuu salaadaada kaa waswaasiyo shaqo kale ma hayo markaa salaada gashidba wuxuu kusoo hordhigayaa wixii ugu adkaa noloshaada waxyaabaha imaam ibnu qayim aan ka faa'iideysto waxaa kamid ahon la yaabay wuxuu yidhi qofku waxa uu jecel yahay wuxuu xusuustaa markuu salaada safka istaago marka waxaad jeceshahay iyo markuu hurdada dhinaca dhigo dhulka fiir daqiiqada aad seexanaysid waxaad ka fakeraysaa umuurtaada waxa ugu adag markaa salaada istaagtin ayaad ka fakeraysaa waad xiratay salaadii xisaabin buu gelayaa qof حسام بوجليا ولذلك waxaad arkaysaa qof maanta dhan wax sameynaya waxbuu kala xiraya uu sujuudaya Soomaaliya arag qof safka kula taagan oo iyadoo la taagay atixiyad akhrinayo maaragtay weligi ama ma kugu dhacday adiga adoo sujuudsan inuu qof quraan akhrinayo ismooga haddii salaada laga baxo dadka aad weydiisid ninba maalin la weydiiyo wuxuu yiri ragcaddii hore maxaan ku akhriyay dadka way garan waayeen qaar badan shib ragcaddii labaad yaa ii sheegi kara dhowr qof baa gacanta taagtay ma oga dadku waa maqan yihiin adduunyo kale ku jiraan caruurtii baa dhinac ku jirta iskuulkii baa dhinac ku jira xoolihii baa dhinac ku jira cashadii baa dhinac ku jirta siyaasadii baa dhinac ku jirta hawlo kale dhinac ku jira adoo dhan ba adduunkaad wareegaysaa salaadiina waa tukanaysaa waxyaabaha aan la yaabay waxaa ka mid ah fakarku wuxuu ugu macaan yahay markaa salaada tukanayso maxaa keenay axlaa laxda qofku markuu inuu fakaro u jecel yahay markuu salaada tukanayo الدون بأكل فرماية ما حكينا وخنزب وشيطان ما نأكتهين دقيقة قف بني آدم أصامر النرشي سأقوم معان وقفك ساعات خشوع أحلى لحظة قفك أصامر نرشي وقفك ساعات خشوع هل ساعات خشوع لها دات تكتو والهلي دون تا معان كذا مدكد الهلي سام وحان إخواني إذن حسوسين يا قلبي وحيابك لكب وحان اون الهي جعلن مخشوع هاسكو دبي وحاجه waxay culimadu dhahaan التحليه والتخليه تخليده waxa weeye inaad horta waxa qalbiga ku jira ka saarto warweelkan horta mari hees baad jeceshahay sheekaad jeceshahay telefoon inaad ku hadashaad jeceshahay waxaad jeceshahay inaad TV daawato waxaad jeceshahay inaad dadka xamato waxaad jeceshahay intaas oo wax قلبك لعق جعين ربا كابوحدا معصيدي زنادي بقى جعشاي قلبك وبوحا ما جلس خشوع ده إله وسود دينيسا وقرب مريسا وحتى هاي نين ربا إنه سجارة توكتا وقاردلو قاعد سنة وجلسنتها قانسي سنة وجلسنتها مركو لابك كمان تكون عايا لكن ده قاعد حوق بدنتها هاي قانسي إنه تاجنتها اللاب كمان فوق بقارية خشوع ده أساس هدي النور كإلهي ماشى قصة داعيه oo uu haysto qofku saa darteeda aayada waxaa jirta marar badan markaad aayada mar walba waan akhriyaa maanta dhan haddaad akhrinaysid qof idinka inta badan waa taqaanaan laakiin mararka qaarkood ama iska akhrinayaa aayadaas macnaa igaga soo dhacay waxaa markaas qalab kugu soo dhacay aayad waxa weeye aayadu ilaahay uu leeyahay mathaluhum kamathali alladhi istawqada naaran falama adaa'at ma xawlahu dahaba allahu binuurihim وتركهم في ظلمات لا يبصرون مركا خشوع لك هلا حسوسته مركا قارك إلهي وحولي دتك وحي لمديهن منافقين تلقاها لي نين دبش تاي أكل دبك مركو أو افتيمي يا إلهي كدمي مركا صار نقدي إلهي وقتري مركا قارك قلبي وحبا كو افتيمي مركا خشوع لي كو بحض قبوي كادمي ساعدنا خنزب لك سوق لاي وكاقوينية وتركهم في ظلمات لا يبصرون مركزو إلهي وحولي آياتك المحايد أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعا في آذانهم من الصواعق حذر الموت
محاد مودا إنه برق دعيسه فيري روب دعيه وحبا دعيه برق دعيسه قرآنك وكوكو صوت دعيه مركي كوكو دعيه قلبي وقريريا إسلا مركيبا مع سيدي باتوريس بناكو كوكو دعيه مركاسا قرآنك ما مكو قال يبا وكوكو وريقيا marka qalbigan quraanku ku wareegay maxaa quraanka gelin kara in horta waxa ku jira qaar ka daadi in weelkan waxa qaato markaas ay galaysaa markay gasho la shaka wixii kale khushuucida baabi'inaysa marka taas aan rabay in aan ku celcelino salaad ma aada tukanin hadaada khushuucin waxaan u malayn waqti waan dhameystay la igu talagalay وقت ما هيسا ان وعاول شاكا اسك سocota اسك sheekeynina ان waxyaabaha waxaan la yaabay saxaabiga la dhigi jiray Abdullah ibn Mas'ud ayaa maalmaha kamida wuxuu arkay nin salaad tukanay ma khushuucsan ninka waa loo jeedan soo khushuucsanay uu iska foorsanaya uu soo kacaya uu sujuudaya uu iska laalaabanaya uu qoslay marka soo qoslay ninkan la yaaban yahay dhinaca kale uu fiiriyay wuxuu arkay mid marad dheer wato oo salaad tukanay hadana uu qoslay سالي محا كا قسليه سوي وحان لا يابay laba nin oo tukanaya kaasaan fiiriyay salaadiisa ilaahay ma aqbalaya kaas aan jeedo ka kalaan fiiriyay kaana ilaahay ma fiiriyay lacnad ilaahay ba ku dhacays labadoodu way tukanayaan labada nin baa iga qoslisay Xudayfa wuxuu arkay Xudayfa ibn Yaman nin tukanayo oo salaada boobsiinay dadka qaarkood waliba dadka waaweyn qaarkood u fiirsan marka salaad tukanayaan سمع الله لمن حمده ما دهاتا markuu soo kacayo سمع الله dhahayo qamiiska ama sarwaalku sii toosanaya horuka sujuudaya way isku xiran hatta ma istaago marka ninkan wuxuu arkay iska daba noqonay markaas uu wixii kaalay markuu yeero wuxuu yiri war meeqeesana saa u tukanays markaas uu waxaan saa u tukanaya 40 sanatan 40 sano si 40 sano ilaahay salaad kama aqbal waxa ma tukan waxa tukanaysaa waxba kama jiraan waxaan hadalkaas ka wada ikhwaani haddaad tukanaysay 30 sano ama 20 sano ama 40 sano oo khushuucin oo khushuucaadan aqoonin salaad ilaahay kama aqbalin waxa kama jirto khushuucda baro qalbigaaga control 5 daqiiqo ilaahay si wax ka soo haysid albaabka markaad ka soo galaysid waxa sawirtaa nin dambiil wata wax ka dambiisha ku rid albaabka dhig meesha igu sugday هذا وثيق هذا فكر كي واحد حاجة صوتك مساجد كي والله شك واحد دعي لهيد مركي لا تكن أيو إن مساجد أوهين كيرت مساجد كرم هل قف هدونه أوي لها والله هدول كده أوي لها حسن البصري وحولي جريب على يري ورما أويدان مركو دتك وعدين ورما أويدان بودي جري ما أنت ورما قف أوي اللي هلا إن كلا دي جري ابن الجوزي ابو فرج وحو دي جريب عليه الهي يوم ما انت دد كان ان وعدينايو هل ويل او دلنيرو او يغسي ودي جري هل ويل او دلنيرو او الهي يغسي او ددك كلا دن الهي او نحريست لعل الله انه دهو ويل كان ميشو كو ددك دن او نحريست هل قف هدو صلاه كو اوي لها dad badan oo kala shaydaanku ka carar laha khushuucda gal lahayd laakiin markuu mid shaydaanku soo galay inta kale buntu naga dhigtay uu suga talaabay والله يقول حويه السبيل الى صلاه